السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل يتحنها كوبان أنكو إيجي سراكيشي إتوبيا حسوقي وقتية كالدونا سامين حن كلها ومد الصومالي دا قرمضا وحانكو سوقادن دونا سدح سركال أو ديباتي صومالي دا وحاني كليهين فانتا بلاي تليه عيدا مدى إرك إتوبيا جنرال جبريس جابر بلا أولو يقاني جبري وجانكي إتوبيا أقابل سنة الصوماليا إيا أقدم بين تليه عيدا مدى إتوبيا بريغا أبراهام ولد مريم أنكو بلونه جنرال فانتا بلاي oo ahaa taliyihii ciidamada cirka Itoobiya gaar ahaan markii uu socday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uu kamid yahay ragga dhibaatooyinka badan u geystay Soomaalida waxa awaamiirta uu bixiyay lagu xasuuqay dad badan oo shacab ah iyo sidoo kale ciidamadii Soomaaliya ee u taagnaa xoreynta dhulka Soomaali galbeed waa janankii amray in la duqeeyo dhammaan bajiidaha dhulka Soomaali galbeed iyo waliba magaalooyinka Soomaaliyeed ee ku dheerarsan xadbeenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya halkaasi oo diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo ay caawinayaan isbahaysigii gaashaanbuurta Warsaw ay duqeyn lixaad leh ka geysan jireen magaalooyinka iyo miyigaba si ay u xasuuqaan dadka Soomaalida waxa ninkan dalka Itoobiya looga yaqaanaa geesi qaran iyaga oo si gaar ah uga xasuusta doorkii uu ku lahaa dib u qabsashadii Itoobiya ee magaalada Soomaaliyeed ee Diridhaba kadib markii ay sanadkii 1977 ciidamada xoogga dalku gacanta ku dhigeen balse diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya door weyn ku yeesheen in ciidamada Soomaaliya dib uga soo baxaan magaaladaasi markii qorshaha dagaalka iyo siyaasashadeeduba ku adkaatay taliskii aaga galbeed ee ciidamada Soomaalida Fanta Bilay waxa uu ahaa taliyihii ciidamada cirka Itoobiya dagaalkii 1977 waxa uu haystay ama maamulay saldhiggii diyaaradaha ee magaalada Diridhaba diyaaradahaas uu maalin walba ka soo kicin jiray Diridhaba waxa ay dhibaatooyin badan u geysteen shacab badan oo Soomaaliyeed xataa sanadihii 80-aadkii ayuu sii waday dhibaatooyinkii uu u geysanayay Soomaalida ee uu xagga cirka ka duqeynayay tusaale ahaan magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal maalin kali ah oo ahayd 30kii bishii January sanadkii 1984 diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ee uu hogaaminayay General Fanta Bilay waxay ku dileen 70 qof oo 37 kamid ah ay ahaayeen arday dugsiyo hoose oo u dhaxeeya 6 jir ilaa 14 jir sida buugaagta taariikhda lagu xusay markii ciidamadii Soomaalidu qabsadeen inta badan magaalada Diridhaba iyo aagaga galbeed ee Soomaali galbeed General Fanta isaga oo naciibka Soomaalidu aad u maasheeyay waxa uu diiday in uu isu dhiibo ciidamada Soomaalida xitaa waa uu diiday in diyaaradaha uu u daadgureeyo saldhiggii weynaa ee Debrecen ee magaalada Addis Ababa u dhawaa ugu dambeyn General Fanta Bilay waa uu dagaalamay waliba wuxuu si laba jibaaray markii ay soo gaadhay kaalmadii Ruushka iyo Kuubaanku ciidamadii Soomaalidana diyaaradahaas Fanta hogaaminayay khasaare lixaad leh ay u geysteen khasaaraha Soomaalida soo gaadhay waxa kamid ahaa sida uu xusay madaxweynaha waqtigan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo xilligaas ahaa sarkaal ciidanka cirka ee Soomaaliya ka tirsanaa diyaaradahaasi ka soo kacay Diridhaba in ay duqeeyeen xataa saldhiggii ciidamada ee magaalada Berbera halkaasi oo ay ku burburiyeen qaar kamid ah diyaaradihii qaaliga ahaa ee Pombriska loo yaqaanay ee ay Soomaalidu kalideed ka haysteen waqtigaas dalalka Geeska Afrika sidoo kale diyaaradahaas xabashidu waxay si arxan darro ah dhibaato ugu geysteen shacabkii iyo askartii ka soo baxaysay furimihii Diridhaba Harar ilaa Baali kumanaan geesi oo Soomaali ah ayaa lagu waayay duqeymahaasi dhinaca cirka ahaa ee uu hogaaminayay Fanta Bilay sidaas baanu generaalka Fanta ku helay dalacaadii ugu sarreysay in laga dhigo taliyaha guud ee ciidamada cirka Itoobiya 20kii bishii May sanadkii 1989 ayuu General Fanta Bilay abaabulay inqilaab military oo uu rabay in uu xukunka kaga tuuro gaashaanle dhexe Mengistu Haile Mariam madaxweynihii wadanka Itoobiya ee xukuumadii Dergiga Bilay iyo saraakiil sarsare oo ciidamada ahi waxay isku daygaasi sameeyeen si ay xilka uga tuuraan Mengistu ciidamadii generaalka daacadda u ahaa waxay qabsadeen madaxtooyada iyo idaacadda qaar kamid ah xeryaha ciidanka qaybta afraad ee Addis Ababa iyo wasaaradda difaaca oo ay ku dileen wasiirkii gaashaandhigga Mr. Haile Mariam sidoo kale waxay la wareegeen saraakiisha afkambiga isku dayeysay ciidankii ugu badnaa ee dalka Itoobiya ee qaybta labaad ee Eritrea fadhiyay oo tiradoodu ka badnayd 300,000 oo askari oo madax u ahaa General Demese Bultu kaasi oo la shaqeynayay General Fanta haddana iyaga oo waxaas oo guul ah gaaray
jenaraal fanta bilay iyo saraakiishii kale ee wax ka abaabulay inqilaabkaasi ma aanay guulaysan. kadibna waa la qabtay isaga oo raba in uu fakado oo dalka Itoobiya ka baxsado ayaa gacanta lagu dhigay. isla muddo kooban kadibna isaga iyo saraakiishii sarsare ee Itoobiya ee abaabulay inqilaabkan waxa lagu fuliyay xukun dil ah. si gaar ahna fanta bilay madaxa ayaa laga toogtay. taariikh kasta oo uu dalkaasi ku lahaana waxa lagu soo afjaray in goob fagaara ah lagu qaarajiyo. isaga iyo 27 jenaraal oo la socdayna dil toogasho ah ayaa sidaas loogu fuliyay. intaas haddii aan kaga soo gudubna fanta bilay iyo taariikhda uu ku lahaa xasuuqa iyo dhibaatada uu dhadhansiiyey Soomaalida, waxa aan si kooban haddana u eegi doonaa shakhsi isna saameyn xun ku lahaa Soomaalida gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay oo ay dad badani aad u xasuustaan. waana jenaraal Gabre Isgaabeer Dila, laguna naanaysi jiray Gabre Isgaabeer Alamsagad Abraha oo loo yaqaanay Kawaankii Muqdisho. waxa uu naanaystaa kula baxay xasuuqii uu ka geystay magaalada Muqdisho. waxa uu ahaa jenaraal ka tirsan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya, sarkaal sare oo ka tirsan jabhaddii xoreynta TPLF ee Tigray, iyo taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya loo diray. waxa uu ahaa sarkaal aad ugu dhow qasriga madaxtooyada Addis Ababa ee xukuumadda Itoobiya tan iyo waqtigii ra'iisul wasaare Malla Zanaawi. waxaanu si gaar ah ugu xil saarnaa dhibaataynta Soomaalida, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu sanado badan baroosin ka dhigtay, isaga oo la sheego inuu xataa xafiis ku lahaa gudaha madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya tan iyo xukuumaddii ku-meel gaadhka ahayd ee Cabdilaahi Yuusuf Axmed. waxa uu ahaa ninkii qaabeeyey waxna ka hogaaminayay duulaankii lagu hoobtay ee ciidamada Itoobiya ku galeen caasimadda Muqdisho. sanado badanna xasuuq dhiiggii ugu badnaa ku daatay ay Itoobiyaanku ka wadeen Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba. jenaraal Gabre Dila, Gabre Isgaabeer Alamsagad, maqalkiisa waxaa dad badan ugu horreysay sanadkii 2006, xilligaas oo uu ahaa hogaamiyaha dhabta ah ee ciidamada Itoobiya ee qabsaday magaalada Muqdisho, Supreme Commander of Ethiopian Military Forces in Somalia. maqalkiisana waxaa dad badan ugu dambeysay July 2018 markii laga qaaday xilkii uu Igaad iyo Itoobiya uga hayay Soomaaliya. 11 sano jenaraal Gabre waxa uu ahaa jenaraal Qaasim Suleymaanigii Iiraan ee Ciraaq fadhiyay oo kale. waxa uu gaadhay in uu noqdo sida wakiilka boqortooyada England ee India, nin ka sarreeya cid walba iyo hay'ad walba. sidaas waxa yidhi wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, waqtiganna ah xildhibaan aqalka sare ka tirsan, aqoon-yahan Abokor Cismaan Dube. dhibaatadii xamar ay ka geysteen ciidamadii Itoobiya ee TPLF ee duqeeyay shacabka magaalada waxaa amarka siinayay jenaraal Gabre. dhibaatadiisu sanadihii dambe shacabkii waa dhaaftay oo waxay u gudubtay bahdilka madaxda dalka Soomaaliya. waxaanu ku amar ku taagleynayay awoodda Soomaaliya. 22 February 2008 TV-ga caanka ah ee Press TV ee dalka Iiraan waxa uu baahiyay muuqaal uu kaga warramay in jenaraal Gabre madaxtooyada Soomaaliya dhexdeeda dil ugu hanjabay madaxdii dowladda. dhacdadaas oo kale oo ay dunida ugu dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka oo ahaa habdhaqankii naasigii Jarmalka. waxa kale oo aan noqotay buuri Abokor Cismaan Dube in isaga iyo saaxiibkii jenaraal Yohannes Abate ay lacag badan ka sameeyeen dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo aan wax qiimo ah agtooda ka lahayn. gacantaydu way ka xishoonaysaa in ay qorto lacagta uu nin xildhibaan ah ii sheegay in maalintii ay soo gali jirtay Gabre iyo Yohannes, ayuu yidhi Abokor Cismaan Dube. dhiigga Soomaalidu ma qalalo sida uu 15 November baahiyey Isad TV. Gabre waa la xidhay iyada oo lagu eedeeyay dembiye ka dhan ah aadaminimada. waxa aad loo aaminsan yahay in uu ku jiro xabsi ku yaala Addis Ababa, halka ay xogo kale tilmaamaan in uu fakaday oo uu ku sugan yahay gobolka Tigray oo uu dhuumasho ku joogo, ama ugu yaraan in uu sida saaxiibkii Getachew Asafa ku nool yahay nolol cabsi iyo dhuumasho ah. balse ma xaqiijin karno ugu dambeyn ninkaasi meel uu ku dambeeyay oo uu jaan iyo cidhib dhigay. aanu gudubno qodobka saddexaad ee qormadeennan, waana jenaraal Abraha Walda Maryam. kani waa jenaraal Abraha Walda Maryam. jenaraal Abraha oo lagu naanaysi jiray Rubuc waxa uu ahaa saraakiishii sare ee jabhaddii Tigreega wixii ka dambeeyay 1991 markii ay Tigreegu la wareegeen awoodda dalka Itoobiya. wuxuu ka mid noqday saraakiisha ciidamada sare ee dalka Itoobiya. muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ahaa taliyihii xukumayay aagga bariga iyo bartamaha dalka Itoobiya. waxa kale oo uu noqday taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya. ka horna waxa uu ka mid ahaa
jenaraaladii xasuuqa ka geystay dagaalkii Eritrea ee maxaabiista badan laayay, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay deegaamada Badame iyo Salambeza. Jenaraal Abraha waxa kale oo uu sabab u ahaa xasuuq iyo gumaad badan oo ka dhacay geeyiga Soomaali galbeed, magaalooyin dhan oo la gubay iyo shacab qaarna la dilay, qaar la barakiciyay, qaarna la dhaawacay oo xubnaha jidhkooda si ula kac ah loo jarjaray. hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda aad bay wax uga qoreen ninkan. waxa kale oo la isku waafaqsan yahay in jenaraal Abraha uu ahaa injineerkii curiyay colaadda Oromada iyo Soomaalida, waxaana aad loogu xasuustaa xasuuqii ka dhacay deegaanka Hamaresa bishii February sanadkii 2018 oo ay Amnesty International aad wax uga qortay colaadaas labada shacab oo joogsatay maalintii uu dhintay Abraha. sidoo kale waa jenaraalkii in badan hortaagnaa nabadda gobolka ee fashilin jiray wadahadallada oo NLF. waxa uu fursad ka dhex arki jiray dhiigga shacabka Soomaaliyeed. janankani waxaa la sheegaa in uu ahaa mid aad ugu dhow oo ahaa saaxiibkii koobaad ee madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar inay ilay. waxa la aaminsan yahay in uu dhaqaale badan ka sameeyay dhiigga shacabka. marar badan waxa loo saadaalinayay in uu noqon doono taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. sidoo kale wuxuu si qorsheeyay saamiga uu ku yeelan doono qandaraasyada adeega iyo gaadiidka qaadi doona gaasta laga helay gobolka Soomaali galbeed. si kale haddii loo dhigo Abraha waxa uu ahaa jenaraalkii Tigreega ahaa ee xukumayay gobolka Soomaalida. laakiin jenaraal Abraha Waldemariam waxa mar kaliya ku qarxay cuqubadii uu ka galay Soomaalida iyo cuqubadii hooyooyinkii uu wiilashooda gowracay. waxa ku soo booday xanuun aan ilaa hadda la garanaynin waxa uu ahaa. waxa loola cararay cisbitaal ku yaala caasimadda dalka Thailand ee Bangkok, halkaas oo uu ugu dambeyn silic xanuunkaasi ka soo gaaray ugu geeriyooday sanadkii 2019. intaas haynoo jooga mowduucaasi haddii eebbe idmo, inaga oo soo qaadan doona bal hadda wixii inooga dhiman saraakiishii xasuuqa u geystay Soomaalida ee Itoobiyaanka ahaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.